maamulka shirkadda Telesom oo iyagu ku xarunta agoonta magaalada Laascaanood kulankani oo ahaa dib u eegis ay ku sameeyeen maamulka arday ay sanad ka hor kafaalo qaateen kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta xarumaha agoomaha ee magaalada Laascaanood mas'uuliyiin ka kala socda shirkadda Telesom go'aankaasi waxaa ka hadlay maamulaha xarumaha agoomaha ee magaalada Laascaanood kana warbixiyay kafaalo qaadkii shirkadda Telesom ay u kafaalo qaaday sanad ka hor ardaydani aan ku bixinay aroortan agoonta ee shirkadu inoo kafaalo qaadatay muddada sanad iyo barka aan gacanta ku haynay waxa iska bedelay sanad iyo 8 bilood taqriiban gaaraysa waxa iska bedelay heerkooda waxbarasho wax la taaban karo waayo caruur yar oo maalintii la soo ururiyay oo waxbarasho maaragtay fiican oo nidaamsan maxay lahayn bay ahaayeen baad iyo mar saddexaad u mahad celinaa ilaahay baa mahad iska leh ka bacdina shirkadii maxay inoo kafaalo qaadatay shirkadda Telesom waxaanu ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala sida mas'uulka shirkadu sheegay gobolku in ay maxay ahayd baahida jirta awgeed gobolka in loo soo kordhiyo dhanka kale waxa isna halkaasi ka hadlay Sheekh Axmed Maxamed Saleeban oo kamid ah culimada gobolka soo waxaan leenahay horumarkaas halka ka sii wada si laba jazaakumullahu khayran waxaad bixiseen boqolaal iyo kuwanaan jeer Allah idin laalaabo xoolihiina Allah idin barakeeyo meesha ka keenteena wax ka wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku bedelo kuwa Nabi Maxamed jannada la galana Allah idinka dhigo waan u mahad celinaynaa shirkadda Telesom saamilaydeeda maamulkeeda cid walba oo ku lug leh horumarkaas ay wadanka ku soo kordhiyeen gudoomiyaha shirkadda Telesom ayaa isaguna halkaasi ka hadlay Mr. Cabdisaaq Dhabiyo waxaana kamid ah hadaladiisii dadaalka dheeraadka ku bixisay iyagana waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran marka inta kaga gudbo runtii farxad weyn inaanu maanta ka soo qayb galno xafladan oo hadeer marasta sanad dhamaaday iyo sanadkii hore 6 bilood ahaa runtii insha Allah ta'ala marka dhinaca laga eego 22 arday way yar yihiin waxaanu rajayn doonaa insha Allah ta'ala in aanu ka kordhin doono markasta waxa lagu bilaabo waxa ugu yar iyadoo dhinacyo badan la eegayo sida sheekhuba ugu mahad celiyay dadka sheerleyda ama dadka mas'uuliyiinta shirkadana iyagana waxaynu ka wada codsananaa arrinka khayrka ee ay sameeyeen in ay ka sii badiyaan oo ay ugu barakoobayaan xoolahooda iyo maalkooda ugu barakoodayaan ilaahayna uu wax ka khayr badan ugu bedeli doono shirkadda Telesom agoonaha kaliya oo ma kafaalo qaadin laakiin waxay qabataa waxyaalo fara badan oo arrimaha bulshada ah waxa kamid ah waagii dhaweyda abaaro dhaceen Salam Foundation way nagala qayb qaadatay oo sheekh oday ahaa biyo dhaamintii iyo quudintii dadkii ku tabaaloobay abaarihii baahsanaa ee gobolkana ka dhacay runtii idina inaad mar walba u ducaystaan kawaalid ahaan shirkadda in Ilaahay barakeeyo waa arrin meesha ku jira Cabdikariin Nolol S24 TV xarunta gobolka Sool ee magaalada Laascaanood